hadda ku hor waxaa dhacday waxaa lii weydiiyey warniyo inta ku dhalataa la dhahay ma fahamtay haye markaas waxaa dhahay warniyo gobolka waxaa ku dhashtay waa beri I like that soo taariikh lagu qosay ma fahamtay gobolka waa beri ku dhashtay gobolka waa beri ku dhashtay ma fahamtay. Welcome back to Naj Show. Waa mar kale iyo barnaamijka Hi Hal Somali Ayu. Caawana waxaa marti noo ah Jamal J oo ku nool magaalada Toronto. Soo dhawo Jamal. waa dhawahay Naji aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan soo fadhiisto YouTube-kaaga masha Allah aan ka wada hadalno Soomaaliga levelku marayo. Waa mahadsan tahay waa ogahay Soomaaliga inuu aad u fiican yahay adoo intaan ka yara ku daawan jiray masha Allah Soomaaliga waa fiican yahay dadka haddana daawanaya subscribe like share gareeya please support gareeya channelka waa mahadsantiin diyaar waa u tahay maanu su'aashaad ku wata wallahi diyaar waa horta barnaamijku waa fahansantahay soo sameysay mar waa 10 su'aaladood 10 ka ka jawaabto 100 helaysaa da konta ka jawaabto 50 60 waa su'aashiba 10 ku helaysaa صح okay maano marka Soomaali inaad tahay waa ognahay laakiin waxaan fiirinaynaa sa xiriirka aan leedahay bulshada Soomaalida iyo maxaa la dhahaa luqadda iyo dhaqanka iyo saa ula socoto ma ka fogaatay maadaama qurbaha la joogo taas leen fiirinaynaa marka diyaar taas Soomaa wallahi diyaar waana isku day inta tawarteeda tahay okay tan ugu horeysa taariikh waay taariikhdan waxay tahay Soomaaliya waxa madaxweyne ka soo noqday Sheekh Shariif ama Shariif Sheekh Ahmed sanadkii la doortay asleeda ma qiyaas kartaa waxaan isku dayo yani waxa ula jeedaa Sheekh Shariif waqtigu noqday madaxweyne wallahi 2000 waxaan u maleynayaa 2009 inay tahay 9 صح waa sax 2009 January ahayd bishii koowaad la doortay intee joogtay markaas adiga wallahi aniga markaa waxaan joogay wadanka Ethiopia joogay 2007 Soomaaliya waa yarad marka waa la socotay markaas waa maqashay saxa waa maqal marka oo isha adiga Soomaaliya 2007 adiga marka waa xir adiga dagaal waxaas bilawday baan oo dhacay soo baxday okay Djibouti lagu doortay waxay 2009 sax waa la doortay 9 su'aashaasi waa ka baxsatay 10 dhibac meesh ku leedahay yes sir you doing good hay su'aasha labaad siyaasad waaye siyaasaddu waxay tahay baarlamaanka Soomaaliya meeqa xubno ka kooban yahay 100 miya 200 miya 300 miya wallahi ikole aniga siyaasad saas ma iskugu fiicnay haye 200 iyo wax la jiro waay ku soo dhaweynaa 200 iyo ama taa 200 iyo 7 200 iyo 7 iyo 7 wax ku dar or 200 or I think 17 7 may 7 number ku dar number oo 7 wax yar ka yar 270 iyo 7 270 iyo 70 waa 270 iyo wallahi su'aasha okay dhimale 235 waay tama sheegin dhimale ku kala ka jawaabaysaa am sure waa ka jawaabaysaa okay meeshaas 10 ku haysataa su'aasha saddexaad aan gudbeynaa luqad waa sahal maamaha iskutiin wallahi waa isku day ana kulebo maamaadi waa maqlaa laakiin dadka ma yihiin isha raaco matid dhimale tan waa sahal every day maqashaa laga yaabaa hooyada ku dhigi jirtay soo joog ninka laga waayay soo jiifa laga helaa hore oo maqashwaano hore oo maqal soo joog ninka laga waayo waxa laga helaa soo jiifa ma dhahay soo jiifa laga helaa soo joog ninka laga waayo soo jiifa laga helaa soo joog ninkii adiga dhib badan camal muxuu ahaa like ninkii dhib badan sax oo like marar wax isha oo sameeyo dhib badan oo laga helin yani dhibka daayo kale soo joog laga waayo waxa laga helaa soo jiif yani markuu isaga jab ku dhaco kale yes markaasoo joojina arinta yes si fiican ugu jawaab si fiican yes waa saxatan waa ogaa inaa ka jawaabaysid okay meeshaas waxaa ku haystaa 20 hal lay ka jawaabin 20 haystaa 3 su'aalaana hadda maroona Jay you doing good thank you okay waxaan ku tusinaa sawir qof YouTuber waayo caan ah laakiin aan sheegtidaan rabaa
jay gabadhan waa youtuber yurub ay ku nooshahay waa caan ma noo sheegi kartaa ha si fiican yaa waay garanaya waxaa la dhahaa Aisha Aziz Aisha Aziz yes good waa kasta famous waaye waxaan ka helaa sida aabaheeda walaalaheeda ula macaamilooto respectiga iyo ixtiraamka that's good waaye oo marmar aabaheeda lasoo fadhiisto siday famil ahaan isku jecel yihiin good sawirka muuqaalka ina tusinaa waa sawir fiican taas waa ka jawaabtay waa mahadsan tahay su-aashaada shanaad aan u tagayna jay waxaan ku hayaa qof kaloo youtuber fanaan plus fanaan waa qasab inaad kasto noo sheegi kartaa si fiican u garanayaa balbalaarka fartuun balbalaarka yes in the house yes qataro ani waxaan ka helaa kartideeda say dad iskaaga celiso confidence ay leedahay isheeg fiican like isku dayaysa wax walba qofkan uu fiican inuu mar walba ani waxaan ka helay markay ayada iyo ninay u shaqayn jirtay is dagaalan waxay tiri hadalay tiri soo jeetay macnaha hamiga ambitionka ay leedahay waxay tiri walaalow adiga milkiilaasha lahayd anoo kuu shaqaynaya aniga adiga camal inaan dhaqdaa rabo milkiilaan rabaay maxay daba taagan tahay taas ay soo jeedata aniga macnaha aniba hamiyaan leeyahay adoo kala naqdaa rabaa marka qofka wuxuu rabo in laga hor istaago maaha inuu sameeyo waayo marka taasoo ku taageersanahay waa qof gabar oo ambition leh qofku markuu ham leeyahay waxa fiican ii sheeg inuu like wuxuu ka nijabin wax walba oo mar walba oo jecel yahay inuu sameeyo inuu qabto badanaa dadka ay ku aflagaadeynayaan hadalla xunxun ku dhahaya laakiin saadi hadda waxa jeceshahay horumar ka gaartid qofka celi karta malaha jay haddana waxaan aadaynaa kana aniga uu jeclaa my favorite xayawaanka ma sheegi kartaa yes maxaa la dhahaa sagaaro wow amazing waa ka baxsaday sagaara la sax waay hilibkeeda ma cuntay of course waa cunay Soomaali waagan joogay waxaan xasuustaa waxaa lagu wadi jiray baal macaan dambiil wallahi baasha dambiil yes sidoo qalan xafadaho lagu wareeji jiray good waa ka baxsatay well done marka hadda waxaan tegaynaa waxaan ku tusinaa meelaha Soomaalida baadiyaha marka la jooga la dago hataa magaalooyinka meelo kamid ah waa ku yaalaa marka waa gurigaas iyo magaciisa ka rabaa inaad sheegto okay waa qayb dhaqankeena kamid ah jay waxaa ii sheegtaa muuqaalkaas kuu muuqdo maxaa la lahaa wallahi waa garanaya mudul Soomaa mudul yes magac saxda sheegtay aqal Soomaali oo jira mudul waxaan mudul la aniga mudul aan garanaya kan laakiin mudul la lahaa sidiis mudulkii aqal Soomaaliga waxay kala duwan yihiin aqal Soomaaliga heer guuraa badanaa isticmaalaan iyo nomadka maadaama uu markasta ay meel kale ka dhisanayaan si simple loo dhisaa qori iyo waxaas waaye kan laakiin dhooba lagu sameeyaa korna coos waaye roobka tam soo galay marka badanaa beeraleyda sameystaan iyo koonfurta laga sameeyaa area xamar afgooye balcad jowhar meelahaas oo dhan ilaa beledweyno waa laga isticmaalaa adigoo webiyada oo dhan marka mudula la runtaa waa xamar markuu gala mudula dhana aqal Soomaalina guud ahaan la isku dhahaa laakiin waa ka duwan yahay wax yar marka weldan waa ka baxsatay wow wallahi meesha waxaa loola imaan doona su'aalo aad iyo aad u waaweyn laakiin waxa ka bixi kara meesha ma waa soo socdaan kuwaas soo socdaan Jamaal meeshaas waxaa ku haysataa 60 todoba su'aal lagu weydiiyay lixaa ka jawaabta hal ka siwaasid tan soo socod waa luqad waxa ay sheegtaa Jamaal dhambaal waxa af Soomaali lagu dhaho dhambaal muxuu yahay dhambaalan kuu soo diray hadii lagu dhaho dhambaal yani ya maskaxdeedu ku jirtaa like dhambaalan kuu soo diray dhambaala loo diray you mean like fariina kuu soo diray yes fariin waay wow man you're doing it good ka baxsatay yes dhambaal fariin waa message English aan yes message fariin waa yes markaad oo hormuud oo kala wacayso markana dhambaal fariina ku taali ku dhaha markana dhambaal qoraal ah iyo dhambaal cod jiro soo fariin waay marka waa ka baxsatay hadda waxaan soo gaareynaa laba su'aal ku dhiman
saas waxaa ka jawaabtay 70 ka jawaabtay 2 ka jawaabtay 2 saddex ka jawaabto 9 ay helaysaa wow okay oo si sax ugu jawaabtay saasaan ka wadaa okay okay marka waxaa bareejo la naqanaysaa haddaa ka jawaabtay ninka cadaankii gabadhi kaleenta ayaan oo iidana 9 shaqeysa labadooda 9 haystaan okay okay musican kuu shidaa waxaan jeclahay inaad musigaas sheegtid okay ma maqashaa musigaas yaa waa ninkaas codkiisa iyo gabadhaas hay jamaal come on waa taqaanaa codkeeda waxaan u malaynaa gabadha ayaana waan u malaynaa codkeeda wiilkana sub wiilka aan maqlo codkiisa mar labaad magaciisa haye wiilka magaciisa gabadha ayaana maaha ma ahan ayaana maya aayahayga heestaas hadda waa maqla laakiinse saas ma u dhagaysanin laakiinse wiilka hadda isku okay ku celiya mar kale misoo ku sheega mar labaad iigu cel isku day soo joojina waxa waaye maskaxdayda ku jirta laakiinse علي مقبات يس سفان هلا سفان هلا علي مقبات سفان هلا مقبات يس يس علي مقبات يس واو انا ذكر وامخنا لايك مقعي يقم بالمناسبه يس ما هو سو دويس وسلاس ايانا ميل دير ugu egtahay laakiin ayaana has deep voice ile deep voice waxyar wow kaas waa hareer martay hala ku haray daa ka jawaabta 8 keenaysa waa juqraafi gobolada Soomaaliya ma kala taqaanaa gobolada Soomaaliya waa kala taqaanaa Sooma magacyadooda magaalan ku sheega gobolkaas gobolka kamid tahay inay sheegtaan rabaa okay diyaar ma tahay hay ku soco isku day tan ugu dambeysay waa okay waxay sheegtaa magaalada Gaalkacyo gobolka kamid tahay Gaalkacyo Puntland state way gobolka gobol waxaa jifir shabeelo dhexe shabeelo hoose Hiiraan mid kale waa ciid marka wallahi saas amal gobol la ani isku ma fiicnay goboladii waxa garaway gobolka kama taqaana dal magaca gobol sheeg iigu soo celi bal Gaalkacyo gobolka ka mid tahay Gaalkacyo okay Gaalkacyo ma oo ku bilowda ma no I don't know wallahi okay gobolka waxay ka tirsan tahay mudug ka tirsan tahay waa magaalada kaliya laba maamul goboleed isku haysto oo macna isku haysto ma kala qaybsaday qaybna waxay ka tirsan tahay Puntland qaybna waxay ka tirsan tahay Galmudug magaalada laba gudoomiye degmay leedahay si fiican waa qaybsan tahay ma fahad dadka ma qaybsano dadka saddex mar waa adeegtaan laakiin laba maamul ka taliso waa magaalada kaliya Soomaaliya saase wallahi aniga Soomaaliya wax la dhahay gobol iyo ma kala ahaa gobol ma taqaanid dhimale waxa la weydiiyay warniyo inta ku dhalatay leedahay ma fahtay hay markaas waxa dhahay warniyo gobolku waxa ku dhashtay waa bari I like that soo taariikh lagu wasaaray gobolku waa bari ku dhashtay gobolku waa bari ku dhashtay ma fahtay xaafadda waa bari degmo marka la yaraayo waxa Soomaaliya anu yaraa ka soo tagay wadanka Itoobiya adeeska waa fahmi karaa waa soo Jamaal saddexa ka jawaabin saas darteed waxa ku haystaa 70 waa mahadsan tahay waxa ahayd tartamo fiican waana dadaashay Jamaal linkigiisa hoosa ka arki doontaan Instagram-kiisa iyo TikTok-giisa please follow Greya waa wiil Soomaaliyeed ku nool Toronto 70 oo keenay waa meel fiican waay 70 content wixii ka yaraa xogaa dhibaato la content wixii ka sareeyo waa guul waay Sooma yes waa wili waa adkay wili waa maxay isdees hada meeqa keenay isdees aniga waxa isdhahay kuleyba fiidiyaashii horan u daawada dadka su'aalaha qaar la weydiina markaa ku xasran maanta taa meesha fadhiisid wax maba ka soo qaadaysid ma fahamtay su'aalaha adag waxa markaa ma wadash ma sha Allah waa keento wallahi waa well done
daawadayaal barnaamijkeena meesha ku ekaya jamaal maxaa leedahay dadka subscribe waxaan leeyahay dadkana daawanayaan Ali Naji hala saaro subscribe commentigana hoos sharna asxaabtaada la wadaag waa mahadsantihiin Naji show intuu ku eg yahay iyo barnaamijka I Have Somali ayo ciao ciao